بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت بشم ميتاي بشم مارس أيتاي لبو 2016 ما أنت وحن halkan war-saxaafadeedka ujeedadiisu ay tahay inaan soo bandhigno waxqabadka ciidanka badda oo ay maalin ka hor ay soo qabteen 5 doomood oo kalluumeysiga sharci-darrada ah oo baddeena lagu jariifayay doomahaas oo laga leeyahay Yemeniin ah. doomahaas waxaa laga soo qabtay inta u dhaxaysa Qandala ilaa Boosaaso. doomahaas sida hadda arkaysaan waxa weeye waa doomo 5 xabba iyo mid walba oo ay wadato 2 xabbo ilaa 3 xabbo oo iyaga laftirkoodu kuwa yaryari ay u soo kalluumeynayaan. waa halkii ay iyagu kalluunka ka gadan lahaayeen dadka Soomaalida, gaadiidka ama laashashka Soomaalida u soo magaranaysaa shaqayn lahaayeen. ayaa waxa weeye transportation-ki kuwa waaweynaa ee qaadi lahaa ee geyn lahaa Yemenna iyagu yihiin, kuwii u soo kalluumeyn lahaana ay iyagu yihiin. waxa weeye hal qof oo nafar Soomaaliya oo sidaa ka shaqaynaya ma jiro. sidaa darteed waxa weeye way ku xadgudbeen runtii baan leeyahay sharciga kalluumeysiga ee Puntland. waxaan aaminsanahay inaynu sharciga marin doonno insha Allah biidhnillaahi kariim. in badan baanu u dignay, siinay digniino, ganaaxyo, balse way ku waantoomi waayeen. sidaa darteed sharcigan la tiirsanaynaa insha Allah. waxaa kaloo digniin siinaynaa ama wax u sheegaynaa waxa weeye dooma kalluumeysatada kale ee doonaya inay si xalaal ah ku kalluumeystaan in ay qaataan laysamada iyo shuruucdana u hoggaansamaan. waxba ka halaami maayaan dakhliga iyo canshuurta dalkana ay soo xareeyaan. sababta waxa weeye dalkan wuxuu ku dhisan yahay canshuur laga qaado qof ganacsada. haddaan canshuurtaa la xaraynin wax soconayaa ma jiro. sidaa darteed kuwarina sharcigaannu marin doonnaa. waxaan halkan bogaadin iyo ammaan uga soo jeedinayaa runtii ciidamada geesiyaasha ee habeen iyo maalin BMPF ee habeen iyo maalin ku hawlan inay badda baaxadda weyn ay dhex maaxaan oo ay wixii ku xadgudbaya ay soo qabqabtaan. aad baan maartay ugu mahadcelinayaa. waxaa kale oo aan rabaa inaan ammaan u soo jeediyo ayagana dadweynaha ama shacabka Soomaalida reer Puntland kaasoo maartay runtii la'aantood aanay waxba noo qabsameen oo inta badan aad iyo aad nooga caawiya wixii ku saabsan informationada oo haddii ay arkaan wax ku xadgudbaya badda ama kalluumeysiga sharci-darrada isla markiiba na soo wargeliya. waa mahadsantihiin saxaafaddu laftirkiinnu waa ka qayb qaadataan sidii aad u tusi lahaydeen dadweynaha Soomaaliyeed waxqabadka ciidanka badda Puntland iyo xadgudubyada dadka dambiilayaasha ay badda ku sameynayaan. waana mahadsantihiin. dadkii aad ku soo qabateen iyo meesha ka soo qabateen dadka waxaan ka soo qabanay waxa weeye inta u dhaxaysa meel u dhow meesha la yiraahdo Qandala baanu ka soo qabanay. dadkuna waa fara badan yahay runtii aad iyo aad way fara badan yihiin ilaa iyo 40-50 hadda way gaarayaan dadka baxarida ee doomaha saaran. sharcigan marinaynaa sharcigu wuxuu ka qabo kaas baan u bandhigaynaa hay'adaha sharciga baan arrinta waa jiraan Soomaalidaas waxa la yiraahdaa qabbaan baa la yiraahdaa. waa kuwa soo horkaca, waa kuwa beenta u soo sheega, waa kuwa qaata waxyaabaha aan macnaha lahayn. waa isku sharci weeye waa dambiile iyo ninkii dambiga u fududeynaya weeye.